sultaanka guud ee beelaha Somaliland Sultan Maxamed Cabduqaadir oo markii uu horeysay ka hadlay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa sheegay in midnimada ummadda Soomaaliyeed ay tahay mid muqadas ah. Sultaanka ayaa sheegay in marnaba ay kala maarmi kareen Soomaalida dhibaato kasto ay soo kala dhex gasho isla markaana ay waajib tahay in dib loo furo wada hadallada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland. Sidoo kale wuxuu sultaanka sheegay in odayaal dhaqameedka ay leeyihiin go'aanka masiirka bulshada maadaama ay ka talinayaan samaha ummadda ayna waajib tahay in laga qayb geliyo wada hadalladaasi. Sultaanka ayaa waxa kale oo uu fariin adag u diray dadka u ololeynaya kala goynta ummadda isagoona xusay in ay dad wada dhashay yihiin Soomaaliya iyo Somaliland balse ay siyaasaddu ay isku qabteen niman gaar ah ayna bulshada reer Somaliland ah oo ka madax bannaan shacabka. Sultaanka guud ee beesha Somaliland Sultan Maxamed Cabduqaadir oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yiri ma xukuumadda unbaa keligeed iska dhagaysa wada hadallada annagu waxaan qabnaa in wixii siyaasadda ay ka hadli karaan odayaasha dhaqanku. Anigu waxaan leeyahay salaadiin ayaan laga tegin oo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ha lagu soo daro cidna naguma mamnuuci karto wada hadallada. Waxaan kaloo codsanaynaa xukuumadda inay naga soo daraan wada hadallada labada dhinacba. Ummadda Soomaaliyeed ma kala maarmayso meel kasto ay kala joogaan dhibaato kasto ay ku kala dhex timaado. Waxaan diyaar u nahay inaan si fiican uga qayb qaadano wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Wuxuuna intaa ku daray sultaanka dadka madax dhaqameedka ayaa xukuma oo ay dhiga nugul yihiin marka madax dhaqameedka loo dhigo nuglaado waxay soo dhaweynayaan wax wada qabsiga ummad markii horeba Soomaaliyan isku ahayn maadaama ninka yiri waan ka maarmay been buu sheegayaa Soomaaliya ma kala maaranto. Marka waxaan leenahay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waa muqadas aan la dafiri karin. Xukuumadda Somaliland oo daba socota hadallada sultaanka ayaa shalay sheegtay in tallaabo sharci ah ay ka qaadayaan sultaanka guud ee Somaliland iyo odayaal dhaqameedyada kale ee ka hadlaya wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya. waxayna xukuumadda Muuse Biixi la xiriiriyeen baaqyada odayaashan dhaqanka qorshe ay sheegayaan inay dabada ka riixayaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.